Assalaamu calaykum. Kusoo dhawaada Dr. Mamo Lectures. Maanta waxaan rabnaa in aan bilaawno course ku saabsan maadada anatomiga. Gaar ahaan waxaan ku bilaabi doonaa qaab dhismeedka maqaarka jirka bini'aadamka. Marka laga hadlayo maqaarka, waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay xubinta ugu weyn guud ahaan xubnaha jirka bini'aadamka. Surface area-diisa ama bedka uu ku fadhiyo waxaa lagu qiyaasaa 1.75 square meters ilaa iyo waxaa la gaarsiiyaa 2 square meters ayaa la gaarsiiyaa. Culeyskiisa waxaa lagu qiyaasaa 7 meelood meel ka mid ah jirka. Yacni culeyska jirka marka loo dhigo 7 qaybood, qayb ka mid ah ayuu ka qaadanayaa maqaarka. Anatomy ahaan waxaa loo kala qaybiyaa maqaarka ilaa iyo 3 layers, kuwaasoo kala ah layerka ugu sareeya waxaa loo yaqaanaa epidermis, layerka ku xiga waxaa loo yaqaanaa dermis, kan ugu hooseeyana waxaa loo yaqaanaa hypodermis. Lecture-keena maanta waxaan kusoo qaadan doonaa overview oo ku saabsan saddexdaas layer, laakiin mid kasta oo ka mid ah waxaan kaga hadli doonaa lecture dhammaystiran insha Allah. Haddii aan fiirino figure-kan, wuxuu inoo muujinayaa qaab dhismeedka maqaarka jirka bini'aadamka. Saddexdii layer hadda aan soo sheegnay, layerka ugu sareeya waxaan ku tilmaanay inuu yahay epidermis. Epidermiska waa layerkaas sare ee midabka qaxwaha leh. Qaybtan midabka cadaanka ah lehna waxaa waaye dermis. qaybta ugu hooseysa ee midabka jaalaha ah lehna waxaa weeyaan hypodermis. Marka laga hadlayo epidermiska iyo dermiska waxaa u dhexeeya membrane aad muhiim u ah, shaqo muhiim ahna qabto. oo waa midabka membrane-kaas ama xuubkaas midabka cagaarka ah leh waxaa loo yaqaanaa basement membrane. Waa membrane-ka ama xuubka isku haayo labadan layer, epidermiska iyo dermiska isku haayo. Shaqooyin fara badan oo muhiim ayuu qabtaa. Structure ayuu ka kooban yahay. Waxaan kusoo qaadan doonaa lecture ka mid ah lecture-ada inoo soo socdo haddii Ilaahay idmo. Epidermis markaan ka hadlayno, asaga waxaa lagu qeexaa waa outermost layer, sidaan horey usoo sheegnay. Waa layerka ugu sareeyo saddexda layer ee maqaarka ka kooban yahay. Wuxuu ka samaysan yahay histology ahaan, wuxuu ka samaysan yahay epithelial tissue, gaar ahaan cells loo yaqaano stratified squamous epithelium cells ayuu ka samaysan yahay. Layerkan featureska caanka uu ku yahay waxaa ka mid ah waa layer aad u qaybsami og. Qiyaastii 6 ilaa iyo 8 isbuuc kasta waxaa lagu sameeyaa isbedel ayaa lagu sameeyaa cellskiisa, oo waxaa ku dhaco waxa loo yaqaano renewal ama cusboonaysiin ayaa ku dhacdo. Featureska kale ee muhiimka ah uu leeyahay layerkan waxaa ka mid ah ma lahan blood supply, ma lahan oo toos ah. Nerve supply-na ma lahan. Wuxuu ka kooban yahay layerkan, waxaa loo sii kala qaybiyaa ilaa iyo 4 ilaa iyo 5 layer. insha Allah asagoo dhammaystiran waxaan kaga hadli doonaa lecture-ka ku xiga lecture-kan hadduu Ilaahay idmo. Haddii aan fiirino dermiska oo ah layerka ku xiga epidermiska, layerka labaad ee ku xiga epidermiska, asaga histology ahaan wuxuu ka samaysan yahay waxa loo yaqaano connective tissue fibers. waa area-dan cadaanka midabka cadaanka ee noogu muuqdo
waxaa yaala marka istarakjaro aad u fara badan oo ay ka mid ka yihiin istarakjarada loo yaqaano skin appendageska oo hadda sida noo muuqato oo kale. Skin appendageska waxaa ka mid ah waxaa loo yaqaano pilosebaceous unit kuwa loo yaqaano oo sameeyaan hair follicleska, arrector pili muscle iyo apocrine sweet glandiga. iyo waxaa kaloo halkan nooga muuqda istarakjarada yaala oo ka mid ka ah sweet glandiga caadiga. This structure is a sweet gland. waxaa kaloo dermiska aan ka helayna waxaa loo yaqaano nerve fibers. sidoo kale waxaa yaalo waxaa loo yaqaano numerous blood vessels ama blood capillaries aad u fara badan ayaa halkan yaalo. sidoo kale asagana waxaan kusoo qaadan doonaa lecture dhameystiran ayaan ka sameyn doonaa. layerka ugu hooseeyo waxaa weeyaan hypodermis, waa midabka jaalaha ah layerkan leh. magaca labaad ee loo yaqaano waxaa weeyaan subcutaneous tissue. wuxuu ka samaysan yahay asaga adipocytes ama waxaa loo yaqaano adipose tissue oo ah fat cells. asagana si kooban ayaan kaga hadli doonaa lecture ka mid ah lecturada inoo soo socda. halkaas ayaan kusoo koobeynaa qaybta koowaad ee introductionka.